Salaamu calaykum guys, soo dhawaada. Maanta waxaan idin hayaa qaab fudud oo qurux badan oo aad iskaga xiri karto timaha, sida timaha ku yaalo kilkilaha, xawadka, shaarbaha, dhabanada, oo aad ugu dhigi karto qaab qurux badan oo sida in aysan timo hore ugu soo bixin oo kale adigoo isticmaalayo waxyaabo dabiici ah. Marka ugu horeysa waxaad soo qaadanaysaa weel midka ugu fudud guriga ka heli karto. Waxaad kala soo qaadataa boomaatada Colgate loo yaqaano oo ilkaha lagu cadaysto ayaad soo qaadanaysaa. waxaad kaloo soo diyaarsataa oo aad soo qaadataa qaando waliba kuwa ugu yaryar ayaad soo qaadanaysaa. Kadib waxaad ku shubaysaa boomaatada Colgate aad ku shubaysaa oo waad buuxinaysaa. Markaad ku shubto qaandadii kadib boomaatadii waxaad ku ridaysaa weelka aad ku shubaysaa oo waad ku fidinaysaa. Weelka markaad ku shubtid waxaad samaynaysaa waad ku fidinaysaa sidaan oo kale. markaad sidaan oo kale aad ugu fidiso boomaatadii waxaad soo qaadanaysaa jeex liin dhanaan ah ayaad soo qaadanaysaa. kadib markaad liin dhanaanta aad soo qaadato waxaad ku shubaysaa qaandadii oo waxaan u baahannahay hal qaando oo liin dhanaan ah biyaheeda ayaan u baahannahay si aan boomaatada ugu qasno. kadib waxaad ku shubaysaa boomaatadii aad ku shubaysaa liin dhanaantii kadib waa isku qasaysaa. sidaan oo kale ayaad isugu qasaysaa ilaa boomaatada iyo liin dhanaantii ay xumbo ka sameeyaan oo ay si fiican iskaga dhex galaan. markaad isku qastid aad ogaatay inay isku qasmeen isdhex galeen waxaad soo diyaarsanaysaa oo kale boodada nooc loo yaqaano baking soda ayaad soo qaadanaysaa. qaando ka mid ah ayaad waxaad ku daraysaa boomaatadii Colgate-kii iyo liin dhanaantii ayaad ku daraysaa. kadib waa isku qasaysaa sidoo kale oo si fiican ayaad isugu qasaysaa oo weliba intay iska dhex galaan waad garaacaysaa si fiican aad u garaacaysaa. waad wadaysaa ilaa inta ay uga ekaadaan sida kareem oo kale oo si fiican aad u garaacaysaa. ugu dambeyn waxay u ekaanahayn sida dareeraha kareemka oo kale ayay u ekaanahayn. waad baroobeynaysaa xitaa oo intaad qaandada kor usoo qaado ayaad fiirinaysaa inay kareem u ekaadeen. kadib waxaan samaynaa marka tijaabadii ayaan hadda bilaabaynaa oo qayb ka mid a ayaad labada far ku soo qaadaysaa. kadib waxaad marinaysaa meel tima leh, shaarbaha ahaato ama gacantaada meel ka mid a ayaad si fiican u marinaysaa oo meesha timaha ku yaalo dhan eryadoo dhan ayaad si fiican u marinaysaa. markaad si fiican u mariso meesha timaha aad rabtid inaad ka xiirtid waxaad sugaysaa muddo 10 daqiiqo 10 daqiiqo ayaad sugaysaa. markii 10 daqiiqo ay kuu dhammaato kadib waxaad soo qaadanaysaa maro ama tiish waad ka tirtiraysaa. waxaad arkaysaa timihii iyo boomaatadii oo israacay oo meeshii oo timaha ka xiirantay ayaad arkaysaa oo ah natiijada aan sugayno. haddii muuqaalkan uu ku qanciyey fadlan share dheh oo la wadaag asxaabtaada. subscribe noo saar, la wadaag asxaabtaada. 10 kun wax nooga dhiman oo wax yar waay. aad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.